البروفيسور صالح سؤال كويدينا waxa sidee u aragtaa al-shabaab iyo shaqooyinka ay ka hayaan Soomaaliya gacali anigu aan wax dhaleeca dadaalka walaalahayga Soomaaliyeed dhulkoodii ku dadaalaya aan inaba u geysanaynin samafal iyo horumarna la jecel misana waxa ay igu muuqataa dhaqdhaqaaqa diiniga ah ee al-shabaab hal yiraahdo ama magac kale hal baxeene inuu yahay dad ay hadda u curanayso wax dadka dunida ku nool bari hore u soo dhamaaday oo ay u haystaan in ifka loogu dagaalamayo diinnimo Soomaaliyana dadku ay isugu haystaan gaalo iyo islaam dadka Soomaaliyeed ee soo daalacay soo jajabay cudurka ugu weyn ee meesha ku dhex jira ee ay ka degilaadahay maaha inaan gaaliyo muslim kala nahay tan iyo dhalashadii tan iyo nabiga oo nool ba dadka Soomaalidu ay muslim ahaayeen wax weeye qibyaalad iyo siyaasad iyo damac iyo hunguri iyo nidaam la'aan waxaan dhalinyaradan u arkaa shabaabka la yiraahdo inay aad ugu jajabeen himilooyin ka imanaya iyo gufaaco ka imanaysa lama deegaanka Carbeed oo si u saaqay aad muddo inay waayahan ay hadda ku nool yihiin iyo waayaha dunidu maraysoba ay kala gudbeen oo doonayaan inay beri hore iyo taariikh Carbeed oo hore ay hadda soo curiyaan oo ay ku dhaqmaan waxaad moodaa hawl dunida u dhamaatay inay u dhalatay maanta